سيدا صلاةين تشيكتي وضح هذا الله أن الله كدب أنا عزمدا صحديرة وفديي أي إجاء جيبين أن السجون من دنها لتلمامين أن كجود حلين إلهي نوسو رجلي يا مهد عليه بك سكون صادين تأجيبتي نوت مدبان خير وانا ويديننا halkan la isku qaadayay beesha isaaq anigu waa kala reebaya beesha isaaq ciidamadoodu waa wada joogaan waa mid walba waxaa ka jooga intii ciidamada SNM kaga jirtay beesha sida gaarkaan u tilmaamaya ee isaaq waxa weeye waa habar jeclo waxaynu ka warqabnaa habar jeclo in maalin kasta tuulooyinkooda laga soo guro ciidamo dheeraada oo lagu xoojinayo kuwa dhulkeena xoogga ku haysta waxaanu u sheegaynaa arrintaa inaannu ka warqabno inaanaan ilaaweyn inaannu ka aargoosan doonno waxaanu isla garannay sida salaantiintu sheegeen annagu maadaamaanu madax dhaqameed nahay inaannu nabadgelyada ka wada shaqayno oo iska kaashano nabadgelyadu bini aadamkaa u baahan ku nool dunyada u baahan oo diinta u baahan oo ilaahay hadduu ku roon yahay dadnimada u baahan in laga wada shaqeeyo dhinacyada la isla qabto hadday tahay nabadgelyadaasi mid beelahaan odayaasha u nahay guud oo hanti habar jeclo ah waxaan u malinayaa 40 guuradii weeye ay isku yiraahdeen tala xumo noocan oo kala intay sameeyeen noqonaysa habar jeclo colaadanay bilowday burcay ku ekaanaysaa markay ugu sokayso isaaq intooda kale waanu ka nacabnahay dagaalka waa uga badinaynaa dilka waa uga badinaynaa colaadda waa uga badinaynaa kooda yar iyo kooda weyn midna dayn mayno habar jeclo waxay inoola bareertay dagaal cad baynu ula bareeraynaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu ilaga guuleeyo baynu ilaahay uga ka baryaynaa labaad isla arrinta nabadgelyadun hoos imaanaya annaguna aanu garbaha ugu nahay dhinacyada waxa weeye wada hadalka u bilaabmay maamulka khaatumo iyo Somaliland in aanu marka hore dhiiri gelinayno in aanu taageerayno in aanu garab taaganahay oo mas'uuliyiinta hawsha wada ee madaxda u ah aanu ku dhiiri gelinayno ku garab galayno u ballan qaadayno sida dhibka jira loo soo afjari lahaa inaanu ku garab taaganahay meel kastay adkaato marka meeshii ay ka adkaatana annagu aanu la dhirinayno oo isu soo jiidayno oo in ayan hawshaasi qabyo yeelan aanu insha Allah ta'ala kaga ballansannahay inaanu dhinacyada ka taagnaano maalmahan waxaan u malaynayaa waxaad ka maqlayseen miiriyaha dad la ururiyay oo la geeyay Caynabo waxaa la yidhi Soomaaliya waxay tiraahdaa habar la weydiiyay aleelo ku waalatay habar jeclo haddeeray shaqaalaheedii laascaanood u joogay askarta iyo xamaaliga iyo kuwii xuqaasha ugu yeeri jireen beenta ahaa intay ururiyeen ay ku soo akhrinayaan dhibkan idin haysta iyo dagaalkani annagu haddaanu habar jeclanahay bari baanu ka nahay annagu haddaanu habar jeclanahay bari baanu ka nahay inta badan oo kale la ururinayana waad arki doontaan oo intaa la soo farayo waxaanu u faraynaa dhibka iyo colaadda isaaq habar jeclay ka timid iyo colaadda isaaq habar jeclay ka timid habar jeclayna ku dambaysaa
dagaalku burcu ku dambayn doona haddii cidna laga dilay haddii gabar la kufsado